كيغو سابولما سحاري وبرما سيبين حماتنا كما دعين كيغو سابولما سحاري وبرما سيبين حماتنا كما دعين marka hore raaliga noqda waxbarashada ay sugeysay laakiin waqti Soomaaliya waqtiga balan qaad kulligeed barnaamijka soo qabtaa waqtiga balan qaad farqi ma jiro laakiin hadda geernahay maantay waxaan rajaynayaa si farxad leh inaan u xusno sanad guurida 57 oo ka soo wareegtay maalintii ee Soomaaliya midowday haddana waxaan barnaamijka sida rajaynayo inuu bilaabo oo aragno sheekh oo walaalkeen khaliif uu noogu furo aayado quraan iyo sidoo قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا صدق الله العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo dhammaan marti sharafka culimaadudiinka siyaasiyiinta aqoon-yahanada muqaasha gabdhaha dhallinyarada saxaabada saxaafadda iyo dhammaan magaranaysa qabaqaabiyayaasha oo soo qabaqaabiya xafladdan aadka u sharafta badan oo qiimaha weyn ugu fadhisa dhammaan waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. سلام كدب مقعيا وردنا صحو قليفة الله يقول شيء مقعيا موسى الشيخ عبد الله وإمام قليف وحدنا وإني قليل كسكر قرآن حتى أنت نسوا دكتور رأي روح رأينا كهذا وقت ما الله يمسي هرنا يقول شيء إننا ماشي وقت لا يعي وحي يرى قامن وقصية مناسبة أسبوع حرمة الصومالية خاصة كود اللي وما تأجوا لحدكي وعن هذا الحرمة كود اللولي وحا صوماليا دراسة وبوي يكوفرت وحا يسكن عن مرضى قبر برنامج الصوماليا أيضا لقيتنا لعنة الصوماليا مقالة مقدشو حقيقة جوغا مانتي يومانك اللي عدكي انت ولا حيسا حقيقة جوغا كونتر يتتوصل كدب صوماليا مهران وصوحنا يوم القرب الجارنين وسكدانا مضغن رد سوياشا اسمف كستوى صوماليا وينو يسوي الديان انت انا هرمرنا بصمانا يسوي الديدو يوحنا يقل الضوء waxaan qabaa waxay wax badan qadamaan marka waa hal mid waxa waaye waa midnimo xumo midnimada ayaa nagu yar sidaa darteed midnimo la'aanta ayaa keentay inaan magaranaysaa aan burburno oo jabkaan nagu dhaco waa inaan midaysnayn qalbiganaga
iyo awooddanada iyo magaranaysaa iyo soomaalinimada dad aan midaysanayn. ayaa waalidiinta sharafta leh inay carruurta aamusiyaan seexada dadka wax ka soo jeedinaya khudbadaha wax lagama maqlo sidaa darteed waxaa idinka codsanaynaa carruurta ina aamusisaan waalid kasta carruurtiisa u ag fadhiyo hadhaho aamus fadaltii barnaamijka noogu qurxanaado waxaa naagala jooga tvgii qaranka soomaaliya oo mataqaana la duubaayo sidaa darteed meesha sawaxankeeda iyo qiimadeeda dhib ay ku keenaysaa inay duubaan barnaamij qurux badan marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaa idinka codsanaynaa inaad carruurta aamusisaan waad mahadsantihiin sharaf bay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadda xuska kooda luuli waa mahadsantihiin haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo stageka walaalkay cilmi oo ka mid ah jaaliyaddeena oo maanta sida sharafta lagu soo qabanqaabisay barnaamijkan isaga ayaa wax yar nooga sheegayo بسم الله والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa in aan salaamo dhammaan dadka Soomaaliya ee meeshaan isugu yimaaday ee ka soo qayb galay maalinta kowda luulyo ee ahmiyaddeeda leh ahna maalinta ugu dambaysa maalmihii xorriyadda ama kowdii maalinta wiigii xorriyadda ee aan soo dhaafnay waxaan rabaa inaan idinku soo dhaweeyo si sharaf leh gacmo furan walaalnimo iyo soomaalinimo ay ku jirto inaad ugu soo dhawaataan waana ku mahadsantiin ka soo qaybgalka wanaagga badan iyo sidaad nooga ajiibteen meeladii iyo waraaqihii iyo maaragtay kashuunkii aan idiin dirnay intaa markaan ka gudbo wax badan maraba inaan ka sheego meesha jaaliyaddu waxay qabanayso iyo waxyaabaha waajibkeeda dadka dhan way ka dharagsan yihiin laakiin waxaan rabaa qabanqaabadii soo bilaabistii ka shaqaynta kowda luulyo iyo sidii u qabsoomi lahaydey iyo dadkii ka soo shaqeeyey iyo wixii loo soo marayna waxaan idiin dul maro iyo maaragtay ilaa hadda heerkaan taaganahay dadka soo gaarsiiyey waana xaqiiqadii dad isku xilqaamay aadna u mahadsan haddii aan ku hormaro maxaan ku idhaahdaa kowda luulyo jaaliyadda soomaalida magaalada Frederiksberg ururada haweenka oo laba ah ururka dhalinyarada soomaalida gobolka Northford ee Ohio iyo annaga oo jaaliyadii ah intaas uma kala harin iyo weliba ururada rayidka intaas waxay isku xilqaameen in ay kowda luulyo ay maanta u soo istaagaan dadkooda ay ku farxad geliyaan waxaan rabaa xaqiiqadii inaan u mahadceliyo odayaasha magaalada oo xoog weyn ka qaatay ururka haweenka oo iyaguna xoog weyn ka qaatay iyo annaguna aan waxba reeban marka intaa ka bacdi jaaliyadda soomaalida oo anigu aan u qaabilsanahay barnaamijka hidaha iyo dhaqanka kowda luulyona ay soo hoos galayso waxa waajib nagu ah ama arrintaad adigu noo doorateen ah ina mar walbaba ama calaamad kasta ama wax walboo astaan u ah soomaalida in aan muujinno siiba maalmaha cayiman ee maantoo kaleeta ay kow ka tahay wax walboo adigu aad noo dirsateen ama adeega ood noo dirteenna sidii aad noogu dirteen ayaan uga soo baxaynaa insha allahu tacaala caqabadooyin badanaan u marnay xilliyo badanaan u soo kacnay waqti badan ayaan gelinay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta haddii aan taagannahay meeshii ugu dambaysay ee ah farxaddii oo aad nala qaadanaysaan aad baan ugu faraxsannahay waxaan rabaa oo kaleeto in aan salaan guud oo ka imaatay guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida Frederiksberg guddoomiye ku-xigeenka isaguna maxamed cilmi iyo guuleediina aan maanta goobta joogin inay salaanta ii soo gureen ama ay naga gaarsiin shacabkeena inaa idin gaarsiiyo saas ayaan kusoo gabagabaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi
إلهي بابنا سبحانه وتعالى إلهي يرضاكم هذه نمر رئيسا إلهي قال سوك كاني نقو عافمات قبل نقو مسلمين نقو فرحسن نقو حسين مالتنا حرية دودا كان هذه في عداي إلهي سبحانه وتعالى أنا بركاية وحكي لي ورنا ما شاء الله تعالى ولا ليان إن أنا مركو الرئيسة آيات القرآن حقيقة يسيطان إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم ولا لي أن إن شاء الله وحير وعربها الحمد لله آدي مقبول فرح صنعي موقال كمان تهي موضوع ويوينك دليرada والدينك ويلشا الحمد لله فرحتها ماشي بفضل إلهي أنو زيادة آمين إلهي أنو زيادة آمين ما أنتوا حماشي وفر الحوايا وحفلة فرحة أنا مرة إن شاء الله تعالى إن الوحكرة الشاقنا وحكري وربنا إن هذا الحسوسين ولا ليان ماشي أنفرنا وعندونا إلى نقطة من العبادة فردقنا إن إلهي سبحانه وتعالى حقيسة عن أجر كان يدوننا واحد كستا وإيمان كان الدين كان وحكماية وحاربنا إلى كفقا فردق أنفرنا بروح بضر قبلها ما شاء الله الله أصدرون بلو حجاب سي حشمت له سي شرف له سي وناق له أي قفلنا نبينا عليه الصلاة والسلام حيري هذا أمد من سقوط ماذا وأمد أصيغة أي وحد إلهي سبحانه وتعالى حقيسة الشيء قرآن كالشيء حديث نبي الشيء ماشي أيضا شغلاتك من غريسة أنا أمركم عندنا الحمد لله إن أمرنا ما أنت وحدها هي مهمة تاريخ الوطن كصومري حفلة معنا هذا إيمان فرحات يبوك كلمة هذا وحرر روح علمي يسن وح آداب أخلاق متقانا وناك إسجعين وذا شقين الدعاء وحصلت كل أسبوع ذا دونينا إن شاء الله تعالى وحكي لهم مهم ولا ليرمعوين ماشي عن فردنا مرتبط قلبنا وفرحسيها بوتنا وفرحسيها دعاءنا ودنا ودن كان ودعين إن إلهي سبحانه وتعالى ودن دقنا بروحك إن إلهي سبحانه وتعالى آفذة هي النباتات هي الدقارة هي الديك إن إلهي سبحانه وتعالى نجدوه مدحنا ودن كان إلهي سبحانه وتعالى إنه كهنوني مدح ودن قوضة جعل تطقوضة جعل إلهي سبحانه وتعالى دين تستريا وناك كل ذلك ومدى يقامل عن خير كوه قامل إلهي سبحانه وتعالى حكري إلهي يا هذا وعارضا هنا كهد الرواح الموضوع كلية وفوقها بجهاز الكيكا الموضوع وحي كليهين فريدي صوماليا انت كقارب iyo waqtiyaalka ay dhacday iyo waqtiga maanta ugu jirto xanuun badan oo aad iyo aad u soo lun labada arrimood baan ku soo koobo hadalkayga midda farxadda ugu horreysa markii aan ka hadlo anoo soo gaabinahaya soomaaliya sidii aynu maqalnay waxay qaadatay xorriyadda 26 juun bay qaadatay abaankii weynaayo ugu magacaabi jiray cabdulaahi suldaantima cadda uu lahaa sarreeyow manusqaamow
siduu yahay eege kana saar waa markuu lahaa midda labaad waa midowgii maxaanku dhahaa kowdii luulyo oo labada gobol ay isu yimaadeen oo maxaanku dhahaa ay midoobeen waxaan malaynayaa markii laga hadlo taariikhda Soomaaliya iyo dhibaatadii ay soo martay lama soo koobi karayo hadal lama soo koobi karayo sababtuna waxay tahay ayadoo wax communication la yiraahdo uusan jirin oo jirusan jirin oo aan gawaari jirin oo hub jirin nimankii xorriyadda Soomaaliya ku soo halgamay oo mugdi ay lugaynayaan oo gaadiidayna haysan nimankii xorriyadda Soomaaliya ku soo halgamay oo xorriyadda Soomaaliya dhaliyay haddii la dhaho taariikhdoodii iyo dhibtii ay la soo kulmeen laga sheekeeyo lama soo koobi karayo laakiin insha Allah waan soo gaabinaynaa waxay mudan yihiin inaan u ducayno oo wax badan sheegno oo maxaan ku dhahaa lagu qoro meelo badan inkastoo lihiin waaga kuma mid jirtin oo taariikh lama qori jirin ayaga ku dagaalamayeen oo halka Soomaaliya wax ku qoran jirtay midoomidaasay ahayd waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo waqtiga maanta aan ku jirno waa xanuun badan waqtiga maanta aan ku jirno waa xanuun badan abwaan kale waa kii lahaa waqti abwaan kale wuxuu yidhi waqti durugsan taariikh nin markaa u milicsado waxaa uga dan leeyahay dad alle jacaylkii dowlaad naga dhexeeyiyo dulshay maanta daawada sida aan ku dhagannahay abwaan kalaa lahaa oo waqtiga hadda aan joogno ee burburka yaa isagana ka sameeyey Thank you.
fanaaniinta dhalinyarada haweenka culamada diyaarta kaleeto dhammaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar haba inaan ku dheeraada hadalka waxaa weeye waqti badan ayaa dadka meesha joogay waqtiguna waa gaaban yahay waxaan rabaa inaan laba kalimo ka idhaahdo inta u horreysa horta waxaa isku dhowyayaa xafladdan quruxda badan oo maanta ummadda Soomaaliyeed halkaas ugu timid oo ah munaasabadii 26 Juun iyo 1 Luulyo isku xambaarsan waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay dadweynaha ka soo qayb galay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa hawlgalata inaan ku daro wax badan baa dadku waxay ka dhawaajiyeen SYL iyo adeega guriga nimanka xorriyadda raadiya waxa weeye nimankaasi annagoo kale ma ahayn annagoo kale dadka intiina halka fadhiyo kale ma ahayn iyo Soomaalida hadda joogta kale waxay ahaayeen dad hooyooyinkoodii iyo gabdhahoodii iyo odayaashoodii lagu sameeyey waxay u dulqaadan waayeen lagu sameeyey ayay ahayd ciil bay la kaceen baahay raggaa gaarsiiyey iyo dadnimo annaguna biyo iyo caanaan ka soo daragnay oo xornimo rag ku soo rafaaday aan ku soo kornay ku soo arnay aanna meel laga keenay iyo waxay tahay iyo maanta ay leedahay aanna midna waa naga lahay marka waxaan leeyahay horta raggaas waan la tartami karnaa ma ahayn waxaan leeyahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waxaan ku darayaa kolley waxaan u malaynayaa waxaa leeyahay hal ninkii laabooda uga taagaya mataxda Soomaaliya waxaa dhulka ka qaadi kara maanta dhulka ka qaadi kara waa intaan laga taga maqan meesha ay taagan ayagaa geeyey ayagana ka soo xeeqin kara hadda dadnimo ku darsanay laakiinse intay saas u kala daadsan yihiin oo waddada la gurayo midba mid lagu diraayo oo midka kaleeto caadaqaatan yahay way ka sii liidanayaan waxaad noqon doontaan dadka la yidhaha jibsiga maaragtay jibsiga oo aan dalka lahayn oo meelaha warwareega oo suuqa dhexdiisa warwarisa samayna oo tuursada dal bay ahayd markii hore waa la baabiyey kaasoo kaleetaa tegi doontaan caalamka waana ogaan doontaa kaasoo kaleetaa jibsiga kaleeta noqon doonta waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeedow maanta cidinii maqlamaan midnaba laydinkaga baahan waxaa laydinkaga baahan inaad isku dulmaataan awooddiinna inaad isku geysaan maskaxdiinna inaad isku geysaan inaad haddii alla gurayo saa dad ku noqonlaydeen inaad dib uga fikirtaan waxaa rabaa inaan markaa ugaan ku sii gaaraan intaas aan ku soo qatimaya Habasida
go-aan ay ku wada gaareen in ay isugu wada yimaadaan
dadkaasi waa dad taariikh ku leh waa dad taariikh weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed maanta waxay haysataa dowladnimo calan iyo dal gooni ah waxay ka xorowday 1969 gumaystihii Talyaaniga 26 Juun waxay ka xorowday Soomaaliya gobollada waqooyi waxay ka xoroobeen dowladdii gumaysiga Ingiriiska sidaas waxaa rabaa in bulshada Soomaaliyeed taariikhdooda lagu socdaan intaa kadib anigoo ku hadlayo magaca jaaliyadda Federalistan wakiilka gudoomiyihii jaaliyadda iyo dhammaan xubnaha waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha ka kala yimiday dhammaan gobollada Norway khaasatan Oslo waxaan rabaa inay idhahdaan waa mahadsantihiin dhulkayagu sabool ma saxariyo abarba sibeen xumaadna kama dhicin dhulkayagu sabool ma saxariyo abarba sibeen xumaadna kama dhicin digseer ma weydiyo sanad waliba waqay digseer ma weydiyo sanad waliba waqay sabtidiyo dhilaha ka soofin ku shubanaa ama hala saabshaa subagana ku lulanaa sabtidiyo dhilaha ka soofin ku shubanaa ama hala saabshaa subagana ku lulanaa sidig baanu maalaa sumal baanu qalanaa 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 sad qursiyo kafaankii Soomaali haddaan nahay sinji baanu leenahay sad qursiyo kafaankii Soomaali haddaan nahay sinji baanu leenahay dhulkayagu sabool ma sigayo dabayl malaha saxan saxiyo wadog dhulkayagu sabool ma sigayo dabayl malaha saxan saxiyo wadog sagal iyo
daruuriyo waasay marooba sagal iyo daruuriyo waasay marooba malka suba dareera kareed sabadka jooga arig baa la soo haa aqal laga sameeya malka suba dareera kareed sabadka jooga arig baa la soo haa aqal laga sameeya surad baa la duuba waxaa lala sugaa gabadh 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 washma sooryo gobannimo soomaali haddaanahay sinji baanu leenahay washma sooryo gobannimo soomaali haddaanahay sinji baanu leenahay
Thank you.
geey. السلام عليكم. عليكم السلام. ساتانا. وفي عنده. حتى صلاة. وفي عنها يا أهل والله في عنا أنا أقول قصص واسوي أفتح كلام مكان. أنا أتذكر بديت كيا. معك الجاكة مش عندك. أيوة أفتح كلام. معك. أفتح كلام. جاكة معك عليه. سمعنا ومبرر. ولي يوم طلب الجاكة الجاكة شنو صار هذا يجي بدي أقول أطلع على هاي الأمور رسمي. يا الله ما شاء الله تقدر. من أعرف بسمكة. بس وقت ما هو مقبلين. ما شاء الله مقعد. عبد الرحمن ما شاء الله سوى الله يعني أنا كانت متكلمة. أقول ما تصحي. أبوه وديك أنا جاء إلى عدد ولتني من عدد إلى مركز أولادنا وعي عدد ضغط يجري كسر. كم فهم؟ عدد أنا أبدا ضغط يجري كسر. هذه هي اللي يجري. والله أنت لما ضد لا سن على اللي يجري. سوالف عدد أبغى عدد ضغط يجري. لا رسول الله ما قرأت. على أنا قريت اللي يجري. ويدلوا عليك كلكم أنا على يجري يا على يجري. بسم الله وأنا بقول لك أنا ماشي على الطريق. والله صحيح. أقرأ سؤال أدام رسول الله تعالى معقول ما على يجري مكان. واحد يعرف الله. لكن والله صدق ما دام صبرنا كل ما عاد شيء لكن والله ما دام هذا ما عاد سياسة كل شغل ما ما عاد سياسة دام شيء شغل السلام عليكم أبا. وعليكم السلام ورحمة الله. قاعد أخبر بعض. أبا في عنا ما أنت شغلك كلام وصلت على عوجاي. أبا ما أنت وصلت على شغلة dadkii maxaabiishiisa ka dhacay waa waqtiga qadada ka saaran qadada way saaran tahay waxyar mili ma dejin maanta waxa u daahiyay sabab ay dhacay maanta arrinta uu sheegay mili
qof walba markuu lahjadiisa
afkiisa ku hadlo waxa weeye laakiin waxaa jirta wax guud oo la kulmiya waxa weeye taas waa soomaalinimada waxa aan taas aan ku midowno soomaalinimadeena aan mataqaana waxyaabaha ciddanka keenaya qofka isagoo ka yimid isagoo meel ku guri karaa meelka isma lahaa lahjada iyo meesha ku dhan laakiin mid guud oo qarnimaa jirta waxa weeye aan ku dadaalo inaan mataqaanaa soomaalinimadeena adkaysano inaan mataqaanaa midowno inaan halqad lahay inaan farqura lahay inaan aqdam lahay isku raacsana waxaan u arkaa xorriyaddii aan qaadanay 60kii iyo 26 juun wax weyn oo weyn baan u aragnaa oo qaayo leh oo Soomaali maanta ku dabaaldegaysa saa darteed waxaa ileeyahay mahadiisa in aan maanta aan joogno sanaguuradii 57aad ee ka soo wareegatay caalanka Soomaaliya la qaatay sidaa darteed maanta u dabaaldegaynaa haddaan joogno magaalada mataqaana maxaa trisfiif aan joogno marka waxaan leeyahay hambalya baan leenahay saas baan u arkaa hambalya aan leeyahay sanadkiisa guud iyo qanac Allah lagu gaarsiiyo ilaa idinkiis saas baan ku rajaynaya haddii aan yiraahdo qaayo weyn bay leedahay qawiye bay leedahay waayo 13 Israa'iil way guusha keeneen waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed hambalyadaan u sheegay in laga qaataan hambalyada maanta u sheegayno waayo 13 Israa'iil waa nimanka guusha keenay calanka Soomaaliya soo keenay weeye hasal yeeshee saas inaan ku dhaqaaqno nimanka yar oo dhalinyarada aan doonayna insha Allah haddii alla yiraahdo inay ku guuleystaan ay calanka Soomaaliya qaataan maadiga calanka Soomaaliya wuxuu yahay iyo wuxuu kale ogaadaan baan codsanayaa Soomaaliya dhammaanteed ha noolaato leeyahay bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa injineer Cumar Muuse Cali Cumar Baylot waxaan ahay maaragtay in madaxda jaariyadda Fredrikstad ee soo qaban qaabiyo hawshani xafladani waa xaflad aad u qiimo badan qof kasta oo Soomaali ah ku weyn taariikhna leh maxaa yeelay waa maalintii aan ka hadlaynay midnimadeena noloshayna iyo dadnimadeena waxa ay tahay taasi waa mid maaragtay aad iyo aad muhiim u ah qof kasta oo Soomaali ah qof kasta waxay leedahay nolol iyo hami ay ku yigsato waa maalintii aan qaadanay in aan nahay ummad jirto oo dal Soomaaliyeed wax la yiraahdo leh bismillaahi raxmaani raxiim ma anigu ah Cismaan Maxamed Xasan waxaan farxad weyn yahay maanta inaan ka soo qaybgalo xafladda isbuuca xorriyadda Soomaaliyeed 26 Juulaay waxaan salaan kali laaba u soo jeedinaya dhammaan bahweynta Soomaaliyeed meel kasta adduunka ugu kala nooshahay anigu ugu bishaareynaya maanta oo maalin taariikh u leh Soomaalida waxaan u rajaynayaa sanadkan kiisa kale inay gaaraan horumar iyo baraare anigu ka faa'iideysanaya fursaddan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaa dhammaan intii ka soo shaqaysay barnaamijkan abaabushay xafladdan quruxda badan gaar ahaan ee ka dhacday magaalada Fredrikstad iyo guud ahaan magaalada Østfold waxaan kaloo jecelahay inaan halkan salaan kale ugu soo jeediyo waaye wardoon.net oo noo suurtageliyay inuu naga qabto videogan waan ugu hambalyeynayna Soomaalida waxaan kaloo aan hambalyo u soo jeedinaa dhammaan dawladda Soomaaliyeed madaxweynaheeda Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Khayre gudoomiyaha baarlamaanka labada aqal sare iyo golaha shacabka waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed si ay u leeyihiin inay khayr iyo barbaaro iyo bashwash ku waaraan oo Cismaan Maxamed Xasan idin mar labaad kul caam wa bikhair ciid mubaarak الرحمن الرحيم waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta munaasabadan qaaliga ah oo lagu xusuusanayo maalmihii xorriyadda Soomaaliyeed 26 Juun iyo 1 Luulyo ummadda reer Østfold waxay u dabaaldegeen maanta oo sabti ah bisha Luulyana ay kow tahay waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto hambalyo 1 Luulyo hambalyo 1 Luulyo
hambalida kooli luuliya insha Allah waxa halkan ka salaamaan dhammaan Soomaali weyn oo dhan waxa uu rajeynaa guul iyo go'nimo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hambalyo kooli luuliya waxa inta ka salaamaya ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogaan maanta si sharaf leh ayaa u dabaaldegnay magaalada Fredrikstad ee wadanka Norway hambalyo aan leeyahay okay hambalyo kooli luuliya Soomaali assalaamu calaykum dhammaan Soomaalida waan wada salaamaya hambalyo maasha Allah kooda luuli waan ku faraxsanahay aad iyo aad hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuh maanta waa dhalashadii Soomaaliya hambalyo Soomaaliya tooso isku tiirsanaada hadba kiina taageer waligiin Soomaaliya ayaadu leh Soomaaliya maanta sanad guurada calanka Soomaaliya maxaa u hambaleynayaa maanta sanad guurada calanka Soomaaliya haye dheh maanta waxaan u hambaleynayaa haye sanad guurada calankeena Soomaaliya insha Allah guul Soomaaliya ha noolaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan joognaa goobtii aan ku qabanaynay kowda luuliyo xusitaanka maalinta kowda luuliyo oo ah maalin taariikhi ah dhammaan Soomaalida magaalada deganna aad bay uga soo qayb galeen waqti badan aan run ahaantii aan gelinay oo aad iyo aad maaragtay u muhiima waxaan ku faraxsanahay inay noo soo gabagabowday si Soomaalinimo leh oo walaalnimo leh ayay noogu soo gabagabowday aadaan isku caawinay reer Fredrikstad haddii aan nahay ama dhammaan reer Ostifolba dad isku xiran oo Soomaaliya oo dad Soomaalinimo iyo wadaninimo ku jirto ayaanu nahay marka insha Allah taala inta iyo in ka badan ayaa qaban karnaa inta iyo in ka badan ayaan rabnaa inaan qabanno reer Oslo waxaan u sheegaynaa in annaga nagu daysadaan wadajirka walaalnimada Soomaalinimada naga dhaxaysa in ay fahmaan ay annaga ay nagu daysadaan ayaan ka baryaynaa oo ka codsanaynaa madaxda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa meelaha ugu fiican qurbaha waa la wada joogaa laakiin wuu kala fiican yahay meelaha ugu wanaagsan ee Soomaalida nuxurka leh ay joogto ha abaaraano meelaha daawada laga heli karo oo dadka caawinaya laga heli karo ha abaaraano madaxda Soomaaliya markay imaanayso Norway Fredrikstad inay imaato ayaan ku caawin lahaa ay arkaan bal dadka jooga iyo maaragtay siday ugu nool yihiin iyo Soomaalida ku nool inta la eg tahay in ay arkaan ayaan ka codsan lahaa ay imaadaan aysan samaynin inay Oslo imaadaan ay hotel ku bariyaan ay hore u noqdaan bal dadka jecel iyo taageeraha iyo maaragtay cadadda ummadda meeshan joogto inay arkaan ayaan ka codsan lahaynay iyo website-ka Wardoon TV-ga qaranka Soomaaliya labadaas ayaan u mahad celinayaa aad iyo aad walaalkayga ninka la yiraahdo Cartan oo asagu madaxa Wardoon ah aad baan ugu mahad celinayaa sida xaqiiqada leh walaalnimada leh oo Soomaalidu ugu dadaalayo waana mahadsantahay walaalkay khayr baan isku ognahay Soomaaliya noolaa